السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن قلب وناكسن هبين وناكسن wax kasto ay ku tahay wanaagsan kusoo dhawo channel Surbiyaan channel walaalahayga sharafta leh kusoo dhawaada channelka Surbiyaan mar labaad waa subax sabtida sidii ay noogu bilaabantay ayaan nala share gareynayaa waan soo kacay bacdo mataqaanay salaad iyo cibaado iyo wixii kale la soo qabanayay kajada ayaa in canjeelana waan soo diyaarsaday way ii qasnayd kadib waxaan bilaabayaa inaan canjeelo dubo waxaan jeclahay subaxa sabtida ah oo kaleeto inaan mataqaanay canjeelo aan guriga ka dubo inta badan subaxa kaleeto iskuul iyo waxba lagu kala mashquulsan yahay sabtida iyo axadana waxa waaye maalmaha oo la nasto guriyaha la fadhiyo marka sidaas daraadeed canjeelo ayaan saaka dubanaynaa maxaa dubateen maxaa ku quraacateen aad ayaan inii salaamayaa dhammaantiinaba meel kastoo aad joogtaan ilaahay maalinta maalin khayr qabta ha nooga dhigo akhyaaray canjeeladan ayaan mataqaanaa saaka aan dubayaa saani hore inuu ku sheegaba oo aan kasoo bilaabay subaxii usually markii la kaco kale subax adeegaa la dooni jiray wadankii laakiin halkan waxaa waaye way ka duwan tahay meeshan qurbaha la joogo canjeeladana mataqaanaa maanta xiiseyneynaa subaxa qaarkood aan sameysanaa saa inii sheegay maasha Allah tabaarakallah way fiican tahay in mataqaanaa subaxa qaar canjeelo la dubo khiyaaray marka canjeeladii intaan dubayay kadib waxaan rabaa inaan u sameeyo gabadheeda nafaqo aan timaha u mariyo iskuulka ayaa lagu noqon doonaa haddii ilaahay yiraahdo halkan waxaan ku haystaa waxyaabihii aan nafaqada timaha la marinayo aan ka sameynaya nafaqadan waa nafaqo aad iyo aad u fiican haddii aad laasintid aadna timaha mataqaanaa u kobcisa una bixisa waxay ka kooban tahay xabada avocado ah double cream saliida olive oil ka samaysan iyo malab intaas afartaas shay ee meesha ii yaala waxaan ahayn kuma soo dari doono insha Allah aan dhahay waxa waaye 5 shay ama waa inta meesha aad ka aragtaan anyway kadib waxaan sameynayaa intii mataqaanaa canjeeladeediina dhinac ayaan ka dubanayaa nafaqadana waxaan rabaa inaan gabadheeda u sameeyo markay quraacdo kadib aan timaha u mariyo waxa waaye iskuulka lagu noqonayaa ilmihiin timihii gabdhihii loo sii hagaajiyo wiilashii loo hagaajiyo ilmihii qurux badan in haddii ilaahay yiraahdo iskuulaadka lagu celiyo waaye marka aniga maanta waxaan sameynayaa nafaqadan waa sabti inaan maanta u mariyo ma caawana u duudubo bari subaxiina haddii axadda u dabo haddii ilaahay yiraahdo marka waxaan rajeynayaa adiguna haddaad gabdho haysatid iyo haddaa wiilal haysatidna nafaqadan labada qof baa u marin kartaa qof ay diidaysa malaha adigaa marsan kari ilmaha wiil baa u marin kartaa gabar baa u marin kartaa waa nafaqo timaha loogu talagalay marka wax oo dhibaato leh ay ku keenayso cunug yar iyo cunug weyn iyo hooyo ma jirto qof kasta wuu marsan karaa waana nafaqo protein leh oo aad iyo aad runtii u fiican avocado aad iyo aad timaha mataqaanaa ugu fiican tahay runtii sidoo kale waxaan ku darsanayaa qaado malaba ayaan ku darayaa qaadadan malabka ahna waxay ka saacideynaysaa timaha waxay ka siinaysaa marka waxyaabaha nafaqada waxay doonaan aad qasanaysid waxaa muhiim ah inaad ku darsatid malab ama sonkor haddii aad malabka haysanin waxaad isticmaali kartaa sonkorta brownka ama madow haddii aad haysatid baa wax yar ku daraysaa sababta aan leeyahay loogu darana waxay siinayaan shiny iyo dhalaal timahaas hadhow waxay noqonayaan timo lafta ka dhalaalaya oo qurux badan ayay ka dhigayaan sidaad arkaysiin waxaan kusoo darsaday 3 qaado oo saliidii olive ka samaysneed ah double creamka caanaha waa caano mataqaanaa cream leh caanaha creamka la qaaraa salti leh ama cusbo ay ku jirtaa markaa gadanaysa iska fiiri inaan cusbo lahayn taan cusbada lahayn ayaa wanaagsan in had iyo jeerba aad timaha ku darsatid waxaa ka mamnuuca timaha waxyaabaha la marinayo inay cusbo leeyihiin waxa cusbada leh timaha inta badan uma fiicna marka wax kasto haday nafaqo tahay haday shampoo tahay wax walba waxa iska ilaalisaa inay milix leeyihiin ama cusbo ay leeyihiin wayna ku qoran tahay inaga timaheena hadaan Soomaali nahay uma fiicna waxyaabaha cusbo laga yaabaa dadka kaleeto ay nala timaha ahayn inay cusbada saacideyso laakiin anaga timaha cusbada nooma fiicna ka saasa muhiima avocadadii iyo ukuntii iyo saliidii double creamka isku soo qastay malabkii maasha Allah waxay soo noqdeen waxaan arkaysi smoothki saana smooth u noqdeen baaquligaana soo qaadanaya maasha Allah waa ku shubaya waxaan rajeynayaa nafaqadan inaad dhayalsanin oo fiidiyooga aad dhameysatid kadibna aad gurigaaga waxa la qofkii ku jooga ama naftaadaba
aad u marin dootid wax yar bay ka kooban tahay wax badanna kama koobna wayna fududahay labadii weekba hal mar ayaa cunugta u marinaysaa ama adigu aa marsanaysaa labadii weekba hal mar ayaa marsanaysaa waana laasimaysaa muddo 3 bilood gudahooda haddii aad alaabtaan laasantid timahaaga isbedelka aad ka aragtid commentiga iigu soo qor insha Allah waxaan rajaynayaa walaalahey nafaqadan inaan laasimi doontin ani muddaa wadaa ilmahayga wax uga gartay nafteydana aan wax uga gartay waa nafaqo yar oo fudud oo mataqaana aad iyo aad timaha u saacidaysa runtii ka ilaalisa burburka jajabka dhalaal siisa dherer siisa maasha Allah difaac badan u leh marka waxaan rajaynayaa nafaqadan inaad ka faa'iideysan doontid halkaas ay nafaqadina ugu dhamaatay diyaarinteedii kadib nafaqadii markii aan soo diyaarsaday cunugta yartahay oo ii diyaar oo ii soo kacday maasha Allah inta ilmihita ilaahay ima khayr qaba ha siiyo inta haysatana Allah la koriyo oo nolol barbaariyo maasha Allah waxaan siinayaa quraacdan siinayaa marka quraaciye kadibna nafaqadii aan u diyaariyay ayaa u marinayaa hooyo waxa waaye hooyo shaqo waaye marka waxa waaye shaqo haday hooyo tahaybo shaqo leh ku sugayso marka hawsha waxa waaye iska wadle ya insha Allah ilaahay hawsha noo fududeeyo waa kana quraacdan siinayaa cunugii markuu ku quraacdo ayuu ku fadhin cunugii oo intaqaana baahan oo soo kacay morning early ay tahay timo inaa wax marisid marka yeelayo marka calooshiisa loo diixinaya relax tartiibtaada kuugu fadhinaysaa waa timahaagiina waa ugu shaqeynaysaa marka iskuulaadka lagu noqonayaa ilmaha waxa waaye sabtida iyo axada timaha loo hagaajiyo hal loo qurxiyo maasha Allah tabarakallah ilaahayo adaan siino siyaadaysana si quraacdi kadib waa isku soo noqonay timihii gabadheeda waatana waa soo furfuray u tabnaayeen markay tabnaayeen kadib waa soo furfuray wasakh badan ma laha runtii nafaqadana marina marka waxaa muhiim ah timaha hadii ay mataqaana ay waqti dheer tabnaayeen oo kale ama adiga ama ilmaha oo ay leeyihiin wasakh oo kale waxaa fiican in aad soo dhaqdo marka hore oo shaamboo kaliya aad ku soo dhaqdo kadibna aad nafaqada marisid way timo zaid wasakh oo nafaqada marisid wax ma ka taray ana hada timaha gabadheed waa nadiif runtii wasakh badan ma lahan wax wasakh ma lahan maasha Allah taasdaradeeda u marinayaa laakiin haddii adiga ay timaha isleedahay wasakh ay leeyihiin waa inaad soo dhaqdid kadibna aad mataqaana aad marisid waxaan u marinaysaa lafta ayaad ka soo marinaysaa tinta meelaha maarta tinta asas inta u kala jeexjeexdid ayaa marinaysaa ana hadda halka aan ku marinayaa markaan dhigo kaamirada ayaa waxaa rabaa inaan si fiican mataqaana aan ugu masaajeeyo ilaa iyo maxaa la dhahaa salka ilaa baarka baan kaga masaajeynaya marka maasha Allah nafaqadaas waa taas u dhalaalaysaa saliidii iyo mataqaana kareemka kale oo caanaha ku daray waaye wax taas mataqaana uga dhalaalaya marka waxa waaye maasha Allah saana u marinaya kaamirada iska dhigaya lafta ayaan ka marinaa ku masaajeena si fiican aan u masaajeynaya marka si fiican aan mataqaana ilaa iyo meel walba aan uga gaarsiiyo ayaan waxaan sameynayaa waxaan ku xirayaa bacban afka uga xirayaa waxayna ku haynayaa muddo saacad ilaa 45 daqiiqo saacad ayaa ku haynaysaa haddii ilaahay yiraahdo waa soo wada marinayaa saa inii sheegay waa kaas khayr waa soo mariyay bacdaana madaxa uga soo xiray saacad ama 45 daqiiqo ay gurka ku dhex ciyaaraysaa iska ordaysaa hadhowna waa kasoo dhaqaysaa marka waa kaasa nafaqadaas in la qaybsanayay saakay inaad ka faa'iideysataan lana kaco aad u mahadsantahay walaalaha cusub igu soo biray waxaan leeyahay welcome kuwa imaanayna subscribe stamp assalamu calaykum